السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa Setay Production waxaan ku guda jirnaa barashada cilmiga kombiyuutarka siiba xisaabinta xisaabaadka ganacsiga. Fadlan ku soo biro comment noqo macaamiisha ku taxan bartaan ku leenahay YouTube. casharkeena noqonaya casharkii 26aad waxaan ku soo qaadan doonaa sida markaas alaab haday ku timaado cusub marka shirkadaada ama ganacsigaaga aad furayso sida soo gashan karto. haddaba qofka kaaga manasa supplier ama vendor ayaa la yiraahdaa bartaas ayaa ku dhufan doonta marka warqada vendor ku soo gaadho receiving vouchers saa marka ugu dhufatid marka ugu horeysa sidaan iyo banaan tahay oo wax shay ah oo ku sameeysan ma jirto waa soo sameeysanaysa barta ku qorantay receive add new item ayaad click si doontaa add new item click marka siisi waxaad ka sii dooran doontaa halkaas ay ku qorantay internet ama waxa ku soo bixi doonta qada add inventory item internet ayaad doontaa waxa email shampoo family magaciisa laha 7 ama 200 oo gram seeta marka uu soo gelisid halkan waxa dooranaysa departmentiga system ayaan dooranaya hoos ayaan soo degay waxaan leeyahay base unit of measure dersan ayaa ugu yaroon iibiya dersan kana waxa siiyaa qiimihiisa 14 laakiin aniga wuxuu ugu fadhiyaa koskiisu 9.99 ayuu ugu fadhiyaa halka ay ku qoran tahay taxna nan ayaa dooranaysa unit-ka ayaa ku soo dhufanaysa unit markuu soo dhufatid waxa oranaysa dersankiisu 14 waxa intaana ugu joogay waxa sii dooranayaa in aan kartoon ay dhahdo kartoon waan iibiyaa kartoon kana qiimihiisa markaasi waxa ku jira 4 dersan maadaama ku jiraan oo intaana siin jiray waxaan leeyahay qiimihiisu waxa weeyaan waxa loo yaqaano waxa siinayaa $47 waaye saas ayaan ku oranaya save and new save marka dhahdo save gareeyo wuxuu ku iman doonaa save to halkan ayuu ku iman doontaa halkan marka ku timaado unit-kaasi ku soo dhufanaysa kartoon ayaa dooranaysa imise kartoon ayaa yimi walaal waxa yimi markaasi 4 kartoon ayaa yimi 4 kartoon waxa weeyaan 159.84 sidaas click marka uu siiyo halka joogo waxa soo sameeysanaya vendor cusub vendor soo sameeysto halkan ayaan ku soo gujinayaa waxa oranaya add new vendor ka cusub ee alaabtiga timi ee hadda la xiranayo magaciisa waxa la yiraahdaa deeq daahir company ayay imanaysaa deeq daahir company waa vendor markaasi wixii si tixraacana halkan baad ku qori doontaa deetana save ayaa leedahay save marka yiraahdo halkan ayaa soo bixi doonta daaqada tan ku qortay deeq daahir company invoice ayaan click siin doonaa halka ay ku qoran tahay bartaas tigta ayaa ka qaadi doonaa tigta marka ka qaado invoice number-ka alaabtan ay ugu timi ayaan qori doonaa inv 7007 date-ka ayaan dooran doonaa date-ka halkan ayaa click siin dabeetana click marka siiyo waxay soo bixi doonaa date-ka markaasi alaabtan ay timi oo ah in ay timi 7 bisha dabeetana 6 bisha ay doorsanto saa markay ugu doorsanto waxaan halkan ay ku qoran tahay close ayaan oranaya close marka tiraahdid hadda waxa aragtaa biilka date-ku yimi iyo date-ku soo gaadhay inay inta tahay dabeetana save ayaan leeyahay save marka yiraahdo saas ayaan ku save gareeyay 4 kartoon hadda aan eego intay taala si aan u ogaado intay taala halkan item lists ayaan ku dhufan doonaa item lists marka ku dhufto halkan ayaan ku sii dhufan doonaa ku qoran tahay waxa loo yaqaano tiradu 16 dersin ayaa yaala 16 dersin marka yaalaan waxaan ogaanayaa markaasi 16 ka dersin inay yihiin 4 kartoon marka kartoon walba 4 dersin ayaa ku jira sida unit-ka loo soo sameeyana loo soo sameeyo cabirka markaasi tirada ku jirta na waan soo ogaan doonaa casharkeena halkaas nagu jooga wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh